السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود هذا برنامج كريم محا عصب وأنا كهذا لما ركع وحيابات الدنيا كعصب. حالة هندية وترجع سافر بقولة كنا قف عذر كفارس كورونا لجهل مال كذي هذا. يا ساعتين وحسي مالي لا ودنتا إن كبنا صدق كون يشم بقولة قف. سي مالي لانا كيسس كدت كورونا صدق توحي قالن صدق بقولة كون وقف. تاسا كنتين جبيهان بجوبي عفماتك بحسمان لاركنا ضد ودون كوكسور دعية أو بلا أكسجين. هذا بعذر كان ضد بوسي جارو سامي ضد كاسنو ضد كان هندوس كلهم مقعبة ما ضد كانوا عابدة خلذات السمين درتونا waxay sabab noqdeen in dalku xaaladda maanta Hindiya ku jirto uu galo iyagaana noqday dhibanayaasha u badan ee cudurkan sida muuqaalkan inta ku jirno ku arki doono hadaba waxaan u soconaa wax weyn kaalinta ay muslimiintu ku leeyihiin xaaladdan uu dalku ku jiro iyo cudurkan uu la tabaalaysan yahay kaalinta ay muslimiintu ku leeyihiin xaaladdan wadanka ku jiro waa mid aan dadkan Hinduuska ay weligood loobi doonin oo dadkii shalay toole masaajidka ka gubeen ay dhibaateeyeen ayaa ahaa dadkii ugu horeeyay ee caawimaad kala soo gaaray muslimiinta Hindiya ayaana ahaa dadkii ugu horeeyay caawimaad kala garab istaagay dadkan Hinduuska ee dhibaataysan oo masaajidda muslimiintu ku cibaadaysanaysa dhammaan muslimiintu uga dareeran waxaana loo bedelay goobo caafimaad oo sarreeyo oksijiin bala dhigay dad ka warhaya dadka bukaankaana loo sameeyay loomana kala eegin dadkan diinta haystaan iyo waxa aaminsan toona qofkii cudurka corona la dhibaataysan masaajidka lagu soo dhaweynay soo kale xataa madrasadii diinta islaamka lagu baranay badankooda muslimiintu waxa ka dhigeen goobo caafimaad maadaama ay goobo kale dhakhaatiirta isbitaalada buuxsameen haddaba Hinduusku waxay ka qoomeyn doonaan masaajidda ay gubeen manay u maleynaynin inay maalin u ahaan doonaan masaajidadani meel ay naftooda kula soo cararaan dhibaatada labaad dadkan Hinduuska qabsatay ayaa waxay ahayd maadaama dadkani dad meydka qofka markuu dhinto guba ahaayeen inay waayeen goobaha ku gubi lahaayeen ama goobii buuxsameen dhammaantoodba xaggan in muuqato oo goobaha ay ku gubi jireen Hinduusku meedadkoodii oo gabigeedu jaxiimana moodo haddaba khalad ka weyn ee dadkan Hinduuska sameeyay waxay ahayd iyadoo wadanku xaalad corona ku jiro xaalad adag ku jiro ayaa ciid waxa soo gashay ciidoodii kamid ah oo wabi ay muqaddas u arkaan ay iskugu yimaadeen tiro gaaraya 3 milyan oo qof waxaana si wada jir ugu wada dabaashanay wada galeen 3 milyan ba wabigaas بالقياس 3 مليون وقف وهل جوب اسكو يمد وواx kala fogaansha sameynaynin hal wabina ku wada dabaashay tan waxa xarunta ka bilowmay cudurkan coronavirusku waana sababtay dadkan Hinduuska u noqdeen dadka ugu badan oo cudurkan ku dhaco una dhinta waxaana caalamku u cadaatay in muslimiinta Hindiya ay wax xidhiidh la lahayn faafinta cudurkan aan su'aalan magaalada Hyderabad baan jooga masaajid waxaan u tukanaa wali qaabkii kala fogaanshaha ee space kala isku dhaxaysiinay وانا مقالة المسلمين تو بدنا هندية كونوا لهين كورونا نكما بدنا حق نركن هندوسكا 3 مليون هالوبية وذا قالي وقبل يسوي سوين بول كديه كيسسكو بدنا كورونا وحكتشرا قبل كمهرش ترى لو مقعابو مقالة مدحيس ومنباي تاي يسوى كان عاصمة نيو دلهي وحنا هنديو سيدو ده سيدا للصادان لين قعما يسسارن دونتو وحبنا كقوين كروي ذا عذر كان قوبو ذا عاف معنا بربران وحنا سبب توين للصاريا يأدوين با مامل كدلك نارندرا مودي cudurkan hadii laga soo baxo mustaqbalka Hinduuska laba mid baa yaala inay muslimiinta abaalkooda xasuusnaadaan ay inay joojiyaan dhibaatooyinkii muslimiintu u geysan jireen ama inay xaqooda ka sii wadaan masaajidda gubistoodii oo inay iska ilooban abaalka ay muslimiintu u galeen dhanka Shiinaha maalin Shiinuhu waxa jiraan gantaal cusub oo lagu magacaabo Long March 5B gantaalkan oo marka Shiinuhu direen kadib ay controlkiisii waayeen oo hawada sare ku lumay الصاروخ الصيني لونج مارش 5B التائه يحبس أنفاس العالم فحطام الصاروخ الخارج عن السيطرة يتوقع أن يصل إلى مدار الأرض السبت المقبل ويبقى موقع سقوطه غير معلوم. gantaal kan dawxu khaaska ku yahay ayaa waxa ka qayb galay culimada u badneed Shiineeska ah waxaana culayskiisa lagu qiyaasaa 20 tan soo kala dhirkiisana 30 feet waxaana ilaa hadda hay'adda naas ee dalka Mareykanka kula raadinaysa Shiineeska gantaalkan iyo xagu maray laakiin ilaa hadda wax warar lama helin cabsida weyn taagan ayaa waxay tahay gantaalkan hadduu ku soo dhaco magaalooyin ay reedku degan yihiin si noqon doonta xaalku gantaal aad u culus oo 20 tan ah sala sheegna wuxuu ku soo aadan yahay hawada dhulkeenan sabtidan soo socota ama axada khatarta kale taagan ayaa waxay tahay gantaalkan markuu atmosferka dhulkeena soo galo xawaaraad u sareeya ay ku soo dhaco doono
oo haddii uu magaalooyin dadarayda degan kusoo dhaco khasaare aad u baaxad ay u geysan doona welina lama oga dhulka uu kusoo dhici doono. haddaba khubarada qaar ayaa waxay sheegeen in gantaalkan khatartan saa weyn la sheegayo aanu lahayn oo Mareykanku siyaasad ahaan uu adeegsanayo. gantaalkan markuu atmosferka dhulka la soo galo uu guban doono khasaarihiisuna yaraan doono waxa dhulka kusoo dhaca. waynu la socon doonaa insha Allah wixii ka soo kordha. dhanka kale Sacuudiga dalka waxaanu la soconay intii ninkan MBS lagu magacaabo qabsay dalka inuu dalkan u socday dhankaasi reer galbeedka ama uu maalinba maalmaha ku xigta kasii tanaasulay waxyaabo qiimo u ah wadanka. haddaba Sacuudigu maalin dhow waxay sameeyeen arrin muran badan ka dhalisay muslimiinta dhexdooda oo waxay wada naqaan magaalada Madiina inay tahay magaalada masjidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku yaalo oo ah meesha labaad ee muqaddaska muslimiinta oo ah. haddaba markuu wuxuu ka taagan yahay marka Madiina la sii galayo waxa ku qornaan jiray board ah muslimiinta kaliya ayaa gali kara, laakiin maalin dhow inta laga masaxay muslimiinta kaliya ayaa waxa lagu qoray wadadii tagaysay Madiina. تحمل عبارة جديدة هي حد الحرم أو إلى حد الحرم، وهو الطريق المؤدي إلى المسجد النبوي في المدينة. هذه العبارة هي الجديدة، لم تكن موجودة في السابق. في السابق كانت هذه اللوحة موجودة وتحمل عبارة للمسلمين فقط. أرجعني دم العن لكن مسلمين بدن أيه واركتين السعودي وكسو تناسلي وحياة بدن وقيم وها مسلمين ونسو دبعي الرجال بيتك. waxaana markii hore Sacuudiga lagu haystay inuu ciidamo Faransiis oo fasaxayna ma ka galaan dhamaadkii qarnigii soo dhaafay 9meedii markii ninkii Juhayman lagu magacaabayo uu qoriga la galay Makka. weli kama jawaabin Sacuudigu ama waxa la kama soo saarin bedelida boorkan uu bedelay oo muslimiin badan u arkaan inuu mustaqbalka u fasaxi doono dad aan muslimiin ahayn inay galaan. muuqaalkan maanta intaas ku yahay fadlan haddaad nagu cusubtahay subscribe saar siina share gare. assalaamu calaykum.